shir kasta iyo kulan kasta oo ka dhaca xarunta shirarka ee Istanbul muslimiinta ka yimaada Xinjiang waxa ay had iyo jeer ku soo celceliyaan murugada aan qiyaasta lahayn ee ku aadan kala sooca iyaga iyo ubadkooda yaa carruurtan xaraystay waxaan maqlay in lagu hayo xarunta carruurta agoonta ma gebigood seedigay wuu maqan yahay wiilkan hawryarta wuu maqan yahay sidoo kale wiilkaygan wuu maqan yahay dalka Shiinaha dawladdu waxa ay gobolka Xinjiang ka aruurisaa qowmiyadaha aan luqadooda iyo dhaqankooduba ahayn kan Shiinaha sida Uyghuriska, Kazakhiska iyo kuwa kale ee tirada yar si ubadkooda loo baro luqadda Shiinaha looguna ababiyo jacaylka xisbiga Shuuciga Cabdiraxmaan Tuxti wuxuu u soo guuray Turkiga 2013 saddex sano ka hor xaaskiisii iyo carruurtiisa waxa ay booqasho kooban ku tageen Xinjiang kadibna waa la waayay kadib waxa uu ka war helay muuqaal la soo dhigay barta internetka oo muujinaya wiilkiisa oo ku jira dugsiyada la seexdo isaga oo aanan ku hadlayn afkiisa hooye ee Uyghuriska kuna hadlaya afka Shiinaha magaca Cabdulcasiis imise sana ayaad jirtaa 4 waa maxay magaca dhulkaaga hooyo jamhuuriyadda dadka Shiinaha waxa ay doonayaan waa inay carruurtayada marin habaabiyaan oo hiddahooda ka jaraan wiilkaygii gacanta Shiinaha ayuu ku jiray 3 sano xeryahan waxaa dheer mashruuc ballaaran oo uu Shiinuhu dhisayo waa iskuulo waaweyn oo carruurta lagu hooyo dugsigan dhallaanka waxaa seexda boqolaal waxaanu muuqaal ka duubnay mid ka mid ah xeryahan qaangaarka halkan ayaa lagu hayaa carruurtana dugsi kale oo u dhow dugsigan dhallaanka waxaa lagu wareejiyey biro kaamirado iyo digniin oranaysa afka Shiinaha kaliya ayaa lagu hadli karaa Shu Jingshin oo ka tirsan xafiiska propagandada Xinjiang waxa uu beeneeyay in la kala sooco ubadka iyo waalidkood ma aha inuu jiro kiis sidan oo kale ahi haddii xubnaha qoyska oo dhan loo diro goobaha la leeyahay waxbaa lagu tababarayaa weli kiis sidan oo kaleana aniga imu soo marin hase yeeshee kaysaskan helitaankoodu ma adko Amiin Wayed waxa ay ganacsi ku leedahay Turkiga dhawaan waxa ay baraha bulshada ku aragtay sawirka gabar ay aaya u tahay waxa ay caddeyn u tahay in la haysto qaar ka mid ah qoyskeeda gabadha ay aayada u tahay waxa ay ku jirtaa dugsiga lagu hayo waxaana loo geliyay dharka hidaha iyo dhaqanka Shiinaha waxaa lagu qasbaa inay xirato dhar aysan doonayn haddii aad fariin u diri karto Akira maanta maxaad ku oran lahayd waxaan u sheegi lahaa inaan jeclahay iyo inaysan quusan sidoo kalena aysan hilmaamin inay weegar tahay Baaris ee barta internetka ka dalbatay BBC-da ayaa muujinaysa in tirada carruurta ku beeray dugsiyada dhallaanka Shiinaha ay 8% kobceen laakiin Xinjiang ilaa intii la bilaabay dhismaha xeryahan waxa ay tiradu kor u kacday 280 waa kor u kac ballaaran iyadoo meelaha ay dadka Uyghuriska ku badan yihiin tiradu inta ay ka sii badan tahay dowladda Xinjiang waxay isku dayaysaa inay hanato dhammaan jiilka cusub si ay u koriyaan dhalin cusub oo laga jaray asalkoodii iyo diintoodii xataa luqadoodii waxaan aaminsanahay inay caddaymuhu sidaas muujinayaan oo ah in aynu ugu yeedhno xasuuq dhaqan Khalida waxa ay u soo guurtay Kazakhstan laakiin markii ay ogaatay in 14 carruur ah oo ay ayeeyo u tahay ay xeryahan galeen lagana qaaday waalidkood waxa ay la xiriirtay mas'uuliyiinta tuulada waxaan ku yidhi meeye carruurtaydii wuxuu yidhi siyaasad ayaa la barayaa waxaan weydiiyey meeye 14 carruur een ayeeyada u ahay way nool yihiin buu yidhi wuuna igu damiyey taleefanka gurigii qoyska qoful baa saaran waana uu maran yahay waxaan wacnay mas'uulka tuulada balse taleefanka ayuu nagu dhigay waxaa jira calaamado waaweyn oo muujinaya kala reebka qoysas tiro badan kuwaas oo xiriirkoodu uu sii libdhayo isla markaana la masaxayo